adduunka sida meeraha kale, jasiiradaha New Zealand iyo New Caledonia. halkan shimbiruhu waxay xukumi jireen ilaa waqtiyadii hore. ma jirin wax naasley ah ilaa ay dadku soo bandhigeen. la yaab ma laha in shimbiruhu ay sare u qaadeen iyagoo leh awoodo gaar ah. waa halka ay ku nool yihiin tukaha kuwaasoo isticmaali kara qalabyada si la mid ah makhluuqa kale ee ku nool boqortooyada xayawaanka. waana halka ay ku nool yihiin baqbaqaaqyada kuwaas oo dunida sahminaya mararka qaarna dhisaya. waa maxay waxa shimbirahan ka dhigaya kuwa aqli badan iyo sida sare ee aqligooda kor ugu kacayo? ugu dambeyntii waxa uu ka da'ay baraf buuraha New Zealand. tani waxay ku habboon tahay deegaanka ilaa dhulkooda. waa baqbaqaaqyada kaliya ah ee sida dhabta ah u jecel barafka, dhaxanta iyo qabowga. laakiin hal shay oo aysan jeclayn ayaa ah kelinimada. waxay ku raaxaystaan wadajirka, waxay inta badan booqdaan asxaabta iyo qaraabada. ku soo dhawow kanaalka Ogaalka Xayawaanka Channel. magacaygu waa Maxamed Xaashi. waxaan ahay tabiye iyo graphic designer. kanaalkan wuxuu ka hadlaa duurjoogta iyo dhammaan xayawaanada guud. waxaan sidoo kale ugu talagalay in ummadda Soomaaliyeed ee daafaha caalamka ku nool ka faa'iideystaan duurjoogta iyo wax badan oo ku saabsan nolosha xayawaanka. haddii aad laaba kanaalka Ogaalka Xayawaanka waxa uu sharaxaa gunta sheekada xayawaanka.